taakuladan ka timid shacabka iyo maamulka degmada Boocame iyo deegaanada hoos yimaada ee gobolka Sool oo dhammayd 20 neef oo geel ah 120 ari ah iyo 100 ciidan ayaa qayb ka noqonaysa taakulo isugu jirta calaf iyo ciidan oo muddooyinkii u dambeeyay hore ee gobolka Sool ay soo gaarsiinayeen shacabka reer Puntland ee ku nool degmooyinka kala duwan. halkan oo ah dooxada bixin ee duleedka magaalada Garowe ayaana lagu soo bandhigay taakuladan ay shacabka degmada Boocame ugu tala galeen difaaca iyo xoreynta gobolka Sool. maamulka iyo waxgaradka degmada Boocame oo guddiga xukuumadda u qaabilsan taakulaynta ciidamada ku wareejiyay gurmadkan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan taakulooyinka ay kaga qayb qaadanayaan xoreynta gobolka Sool. taakulo xoolo ah oo geel iyo ari leh iyo raggi labada intaas xoolahay raggi iyo xoolihii baanu inii wadnaa waxaanu doonaynaa inaad naga guddoontaan haddii alla idmana inta hawshaas soconayso taakulada iyo ciidanka waxa weeye sidaasaan u wadaynaa inta waxa weeye cadowgayna dul fadhiyaa ina ka kacayo halkaa markii aan kaga gudbo Soomaalidu waxay ku maahmaadaan waxa la yiri tir ragihi iga tag lama yiraahdo laakiin wuxuu ku tago ayaa la tusaa haddii ilaahay idmo nimankaa dooni mayno oo dhiigooda dooni mayno oo dalkooda dooni mayno oo waxa weeye dad walaalaa oo darisaynu laakiin haddii ayna ka tegi waayaan waxa weeye wax aynu la haraynaa ma jiraan naf iyo maal iyo muruq labada intaba waa ku bixinaynaa waxaan leeyahay haddaad tihiin nimanka Soomaaliland sheeganaya ama isaaq sheeganaya walaalayaalow dib isugu noqda dalkayaga nooga baxa wuxuu yidhi ninkii baxaya baylow indhuhu beesad ma arkaane boonaamo jaambaa hilaac uga bigileeyahay waxbaa u muuqday wixiina madaxayna waa helaya aad iyo aad waxaan maanta idiin sheegaynaa oo halkaan micnaha ugu nimaaneen oo reer Boocame waad u jeedaan inay wadaan taakulayntii waxaan la idiin sheegaynaa wasiir iyo wasiirada iyo xildhibaanada inayaan harayn wasaaq ku harayn inay sii wadayaan taakulaynta calaf iyo ciidanba. wasiirka beeraha iyo waraabka ee dowladda Puntland Daahir Xaaji Khaliif iyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Cabdiweli Xirsi Cabdulle Hindhaguran ayaa ammaan u jeediyay shacabka iyo maamulka degmada Boocame ee gobolka Sool iyo deegaanada hoos yimaada waxaana ay ugu baaqeen shacabka degmooyinka kale inay iyaguna ka soo qayb qaataan taakulooyinka lagu garab istaagayo ciidamada difaaca. waxaan u mahadcelinayaa odayaasha iyo waxgaradka reer Boocame oo saaka halkan keenay xoolahan taakulaynta iyo ciidanka gurmadka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin hawl wanaagsan bay soo qabteen waxaana loo baahan yahay hawshaas inay sideeda u socoto baa loo baahan yahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa baadi kugu raagtaa hantidaadaad mooddaa haddii muddo dhul laynaga haystay haddaynu iska aamusnayn oo Soomaalinimo iyo derisnimo iyo aan raadinaynay ehelnimo waxay keentay in awowayaashii loo dhigto in la soo durkoo la yidhaahdo garow waan u soconnaa in la yidhaahdo inaan idin dili jirnay awowayaashin weyddiiya. waxaan u malaynayaa maanta taariikh madow iyo taariikh cad baa inoo garabtaal isu keen garabtaal waxay muujinayaan labadii usbuuc oo la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyadii ka socday gobolka Sool waxa ciidan imaanaya iyo waxa akhyaar iyo odayaal iyo sulaadiin iyo garaadyo hadlayay waxay muujinayaan duulaanka lagu soo duulay iyo deegaanka la qabsaday iyo gumaysi kii Ingiriiskii waana siiyay leh iyo kan hadda ku soo duulay inay siman yihiin. waxaa lagu muujiyay ficil iyo qowl ciidankan hadda inoo hor taagan oo ciidan la mida ay ka soo horreeyeen waxaan rajaynaynaa inay ka mid noqdaan kuwa guushaas ku naalooda kuwa dhulkoodii gumaysuhu qabsaday ka xoreynaya dadka ku soo duulay ayaan ka rajaynaynaa haddii ilaahay ogolaado. waxaan rajaynaynaa kuwii beeniyey ninkii lahaa awowgiin baan dharbaaxi jiray inay noqdaan dad deegaanka ka soo jeeda kala yaqaan wiilka ka yimaada Sool markay ku dagaalamaan Tukarraq iyo Laascaanood iyo Guumays dee ninka dhulka lahaa oo yaqaanay ayaa asalkeeda leh laakiin nin ka yimid oon garanayn hadduu cararo xataa meel u ordo
waxaan u malaynayaa inuu iska tegi doono ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa maxamed bilay